wafdigan maanta soo gaaray ayaa waxa uu ahaa guddiga farsamo ee shalay uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kuwaas oo isugu jira xubno ka socda dowlad goboleedyada dalka dowladda dhexe ee Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha maamulka gobolka Banaadir xubnaha guddigan farsamada markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi ugu horeen wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed kana mid ah guddiga farsamada ee Koonfur Galbeed xaggooda matalaya ayaa waxa uu la hadlay saxaafadda wafdigaas oo ka kooban ku shal socda dhammaan dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir xubnahaas oo geeka meel raaysan nabadgelyaha Nigeria weelana hadhawaada wayba meel raay Baydhabo handeerina ani meel raay shirki hadii la yiraahdo kanaga suuna furmo doona mardhow guddigana way fadaan meel raay lana ka dhawaada magaalada ka dhawaada magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya idan ka faraxsan xaqiiqdii ka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ahaan anigee ka shirkan la niska kooy guddi heerkan laagna kooy insha Allah taala shirarka in badan ha socday meel badan la niskana nagadi way rajay doona Ilaahay ku rajeeyana ani sumeelilka ka guuleysada fadi iyo waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed oo meel walba roogdan oo filada hayto waxyaabo eedan wanaagsan wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalk Soomaaliya oo qayb ka ah wafdiga maanta soo gaaray magaalada Baydhabo isla markaana guddiga farsamada xubnaha ugu sareeya ah ayaa isna saxaafadda waxa uu faahfaahin ka bixiyay guddigan farsamada iyo ujeedka ay u soo gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 17 September hirgelintiisii iyo qodobadii u dambeeyay si looga wada xaajoodo waxaanu maanta kulan shaqo ku nimi magaalada caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo annagoo ka kooban dawladda federaalka dawladaha xubinta ka ah iyo gobolka Banaadir waxaanu ku rajaynaynaa halkan inaanu sii joogno maalmo aad u kooban maantana shirku noo furmi doona si aanu arrimaha u soo idlayno u soo gabagabayno marka warbixintan hordhacda waxaanu rabnaa ugu horeyn inaanu run ahaantii si buuxda ugu mahad celinno maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo wasiiradiisa iyo howlwadeennada sida sharafta leh noogu soo dhaweeyay ilaa saaka ilaa ay hadda noogu soo dhaweynayay magaalada intii waftigu ay soo socotay guddigan farsamada oo isugu jira kuwa ka socda dawladda dhexe maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan heshiiskii 17 December lagu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay isla gaareen kaas oo kadib shirar madaxdu ay ka yeesheen ay meel marintiisa iyo ka hadalkiisa waxyaabihii lagu heshiiyay ay ku heshiin waayeen laakiin guddigan farsamada oo arintaasi si aan baqaadi doona iyo arinta doorashada ayaan la ogeyn halka iyagana ay meel dhigi doonaan